kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo kuwa deegaanada Soomaalida waa 26 Abriil qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Biixi oo la filayo in uu magacaabo gudida wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya xukuumadda Soomaaliland oo la wareegtay gaari qaasida xilli gudida heer qaran ee ka hortaga coronavirus ay mamnuucday in gudaha Soomaaliland uu soo galo qaad dawladda Turkiga oo muwaadiniinteeda kala baxday magaalada Muqdisho iyo sababta ka dambaysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa in uu dhawaan magacaabo gudi gaar ah oo ugu talagalay in ay noqdaan gudida wada hadalada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya wararka ayaa xaqiijinay in madaxweyne Biixi uu ka baarandegayo xubnaha uu xulayo in ay hogaamiyaan wada hadalada u dhaxeeya Muqdisho iyo Hargeysa wada hadalada Muqdisho iyo Hargeysa ayaa la rumaysan yahay in ay dabada ka riixayso dawladda Itoobiya gudida lagu wado in uu magacaabo madaxweyne Biixi ayaa lagu wadaa in ay u badnaan doonaan aqoon-yahano ka soo jeeda Soomaaliland waxaana wehelin doona xubno siyaasiyiin ah waxaana la filayaa in uu gudidan hogaamiyo noqdo wasiirka umuuraha dibadda Soomaaliland madaxweyne Biixi ayaa dhawaan sheegay in aanay jirin shir qorsheysan oo ku saabsan wada hadalada dhex mari doona Soomaaliland iyo Soomaaliya laakiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa la fahansan yahay in uu culays ku saarayo Soomaaliland iyo Soomaaliya in uu qabsamo wada hadal u dhaxeeya isaga oo markii ugu horeysay bishii Febraayo kulan isku hor fadhiisiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne Farmaajo xukuumadda Soomaaliland oo hore u shaacisay in gudaha Soomaaliland aanu soo gali karin qaadku si looga hortago xanuunka safmareenka COVID-19 maamulka gobolka Hawda ayaa gacanta ku dhigay gaari sidii qaadkaasi oo ka yimi wadanka Itoobiya waxaana lagu wareejiyay ciidamada booliska gaar ahaan ciidanka birmadka sida uu sheegayo maamulka gobolka Hawd saaka waxa guul weyn noo ah waxa ka warhayseen gudida loo u xil saaray madaxweynaha qaranku xanuunkan in la yareeyo coronavirus-ka inay joojiyeen maalinta axadda inaan qaad wadanka soo gelin karin dambe iyadoo ummadda caafimaadkeeda la badbaadinayo la yaraynayo xanuunka uu qaadku inoo soo gudbin karo markaas saaka gobolka Hawd haddaanu nahay ciidanka qaranka ee booliska ana u mahadnaqaya waxay soo qabteen gaari qaad sida oo ka soo tallaabay dhinaca Itoobiya kuna soo socda xagga magaalada Hargeysa qaadkaas oo ay leedahay shirkadda FF2 ay leedahay wada tashanay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed aan wada tashanay waxay noqotay in qaadka iyo gaariga saaran la soo gudbiyo lana keeno magaalada Hargeysa gacantana loo geliyo gudida u xil saaran coronavirus-ka ee uu madaxweyne ku xigeenku gudoomiyaha ka yahay marka aniga taliyaha qaybta booliska gaarigii waa soo kaxaynay waxaanu ku xareynay laanta birmadka ee ciidanka qaranka ayaanu ku xareynay qaadkii iyo saddexdii maxbuus bee saaraaba halkaasaan ku xareynay waxa sidaa loo sameeynaya inuu qof waliba arko oo saaka ku tahanbaabi lahaa inuu qaad qarankan soo geliyo ummadda caafimaadkeeda la doonayo in la ilaaliyana wax u dhima inay u noqoto waano iyo dhaxalgal u noqoto Cabdirashiid Cabdi boqol oo kun oo ruux go'aankan ayaa ka soo baxay madaxweynaha Ankara Rajab Tayyip Erdogan waxaana uu ka mid yahay talaabooyinka lagu xakameyn doono cudurka dhibaatada badan adduunka ku haya waa hagaag daawadayaal intaas waxaanu waag wararka caalamka iyo kuwa deegaanada Soomaalida Wave Mile.